buugga awoodda jacaylkiyo saamaxaadda ee uu qoray Dr. Ibraahim Alfiqi. Qaybaha jacaylka, qaybta labaad. Jacaylka noolaha. Jacaylka Alle waxaa laga soo dhambalay jacaylka dhammaan noolihiisa, ha ahaadaan aadane ama noole kale. Waxaad arkaysaa shakhsi gurigiisa ay soo galeen cayayaan oo isu diyaarinaya dilka cayayaanka, sida inuu u soo galay ciidan duulaan ah. Maad iska bixisid adiga oo aan dilin? Ma waxaad naftooda u dhaafinaysaa keliya inay si qalad ah ku soo galeen gurigaada? Ka waran haddii aad booskooda joogi lahayd oo aad guri qof leeyahay si qalad ah ku gali lahayd, diyaar ma u ahaan lahayd in uu ku dilo qofka gurigaasi leh? Jacaylka Alle waxaa laga soo dhambalay jacaylka dhammaan noolihiisa, ha ahaadaan aadane ama noole kale. Waxaad dareemi lahayd inaad ku nooshahay nolol wanaagsan. Jacaylkaasi waxa uu ku siin tamar iyo awood. Aniga oo la socda koox dhalinyaro Jabaaniis ah ayaa waxaa horteeda ku arkay caaro, waxaana u degdegay inaan ku joogsado. Mid ka mid ah ayaa igu yidhi, maxaad samaynaysaa? miyaanay naftaada oo kale lahayn? Haddii aad booskeeda oo kale joogi lahayd, ma jeclaan lahayd in uu kugu istaago qof? Wax weyn baan ka bartay ninkaas, oo ah in aan dhowro nolosha makhluuqaadka Alle. Barkad lagu dabaasho ayaa waxay ku tiil gurigaygii Kanada agtiisa. Waxaan arkay quraanjo ku dhacaysa, waana ka badbaadiyey. Kadib badbaadintii waxaan arkay quraanjadii oo ku istaagaysa labadeeda lugood ee hore, sida iyadoo i ducaynaysa. Waxa aan gabadhayda baray inay saacido xayawaanaadka oo ay badbaadiso kolkii ay dhibaatoodaan. Aniga iyo iyadana waxaan ku tartami jirnay badbaadinta cayayaanaadka barkadda gaarka noo ah ku dhaca. Ma sifayn karo liibaanta uu dareemayo qofka marka uu ku guulaysto badbaadinta noole, sababna uu u noqdo badbaadintiisa. In badan oo ka mid ah dadka waxay dhahaan, kama helno cayayaanka hebel ah. Qofkaasi waa ruux aan marka horeba soo dhoweyn naftiisa. Sidee buu wax kale ku soo dhoweyn?